kadib dhagax dhigay jaamacadda Qabridahar waftiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Dhamaqa Mokonin ayaa booqasho ku soo gala bixiyay magaalada Najijiga mashaariicaha ka socda sida hoolka weyn ee hawshiisa dhawaan faraha laga qaadi doono dhismaha cusub ee xafiiska madaxtooyada iyo goobo kale oo ka mid ah magaalada Najijiga waftigan uu horkacayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Dhamaqa Mokonin oo ay ku weheliyeen wasiirka wasaaradda waxbarashada Shifar Hawshu Guud wasiirka wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada Cabdifataax Sheekh Cabdullaahi iyo afayeen ku-xigeenka golaha federeeshinka dalka Itoobiya mudane Rashiid Xaaji ayaa waxa dhanka deegaankan kaga wehelinaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiin kale oo xilliga booqashada ay ku wacdeen maqaaxi ku taala magaalada Najijiga oo laga qawxiyo oo bulsho badan oo halkaasi ku sugnayd ay la shaaheeyeen السلام ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Dhamaqa Mokonin oo wareysi gaar ah siiyay STV ayaa waxa uu sheegay in adeegyada aasaasiga iyo kaabayaasha dhaqaale ee ka jira deegaanku ay yihiin kuwa ku socda xawli dheereynaya markastana isbedelkii hore ka fiican uu ka jiro deegaanka ከዛሬ አንድ አመት 3 ወር አካባቢም እንደዚሁ እዚህ ቦታ መተን ነበር ተመሳሳይ በጎዴ ቀብሪዳሃር ደጋቡር እና ጅጅጋ ነበር ከዛ ጊዜ በኋላ ደግሞ ዛሬ ተመልሰን መተን ስናየው ልማቱ ሰላሙ አጠቃላይ ክልላዊ መንግስቱ በተጠናከረ ሁኔታ ልማቱን እያጣጣመ እንደሆነ እየተገነዘብኩ ያለሁት ከሁሉም በላይ ደግሞ የመንገዶች ስራ አምና እንደ ብዙ ችግር ይቆጠሩ የነበሩ አሁን እየተጠናቀቁ ያሉበት ድልድይ የሸበሌ ወንዝ የመስኖ ስራ እና ሌሎች ልማቶች በጣም ጥሩ ለውጥ የውሃ ልማቱ ብዙ ቦታ ተስፋፍቷል መንደር ማሰባሰቡም እንደዚሁ የሚቀሩ ስራዎች ቢኖሩ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው አሁን ደግሞ ቀብሪዳሃር ላይ ያው በዚህ ክልል ሁለተኛ ዩኒቨርሲቲ እንዲገነባ መሰረት ድንጋይ መቀመጡ የክልሉን ልማት ከምርምርና ከሰው ኃይል ልማት ጋር አቀናይቶ ለመምራት ሌላ ተጨማሪ ድልና እድገት እንደሆነ ማየት ይቻላል sanadii 3 bilood ka hor waxaan imanay goobtan si lamida waxaan booqanay goday Qabridahar dhagax buur iyo Jigjiga maantana ku soo laabadkeenan waxa iga baxay in xukuumadda deegaanku horumarka iyo nabadgelyada ay si xoojisay waxa inta ka sii badan waxa uu yahay in wadooyinka oo hadda ka hor dhibaatooyin laga sheegan jiray hadda ay gabagaba marayaan gaar ahaan wadooyinka mashruuca waraabka goday guud ahaan biyaha iyo dib u dejinta waa arrimo muhiim ah oo guul ah inkastoo ay jiraan shaqooyin dhiman haddana waxa jira dhaqdhaqaaqa xawligiisu sareeyo waxa kale oo guul loo arki karaa jaamacadda labaad ee deegaanka ee Qabridahar ee la dhagax dhigay in horumarka deegaanka ay ku hagayso cilmi baadhis iyo cudud basil mudane Dhamaqa Mokonin ayaa xuseen magaalada Jijiga uu ku arkay dhismayaal hor leh oo ka socda taasoo uu sababay amniga ka jira deegaanka ka go'aanshaha dawladda qurba joogta iyo hantiilayaasha maxalliga ee maalgashiga ka wada magaalada Najijiga ጅጅጋንም ስንመለከተው በእውነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካሉት ከተሞች ብዙ ግንባታ ከተጀመረባቸውና ከሚካሄድባቸው አንዷ ጅጅጋ ናት ማለት ይቻላል ተዘዋውረን አይተናል ትልቅ እንቅስቃሴ ነው ያለው ለዚህ ዋናው ሳቢ ቀለበት ምንድነው ብለን ብንወስድ ሰላሙ ነው የአካባቢው መረጋጋትና አስተዳደሩ በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ወደዚህ ወደ ኢንቨስትመንት መጀመራቸው ክልሉ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለዚህ ሳቢ የሆነ መጥቷልና ይሄ በመንግስት ደረጃ በእጅጉ የሚበረታታና እንደ አንድ ተምሳሌት ሆና የምትወሰድ ጅጅጋ ትልቅ የእድገት መዋር ውስጥ የገባች ከተማ ነች ይሄ ደግሞ አዳዲሱ ማስፋፊያ አሁን የምናየው የክልሉ መስተዳድር የቢሮ ግንባታና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ታይዘው ስንወስደው ጅጅጋ በትልቅ ለውጥ ጎዳና እንደሆነች ነው ለመታዘብ የሞከርኩት
waxaan odhan karaa Jigjiga waxay ka mid tahay magaalooyinka dalka ee dhismayaasha ugu badan ay ka socdaan waan soo booqannay oo aragnay dhaqdhaqaaq ballaaran ayaa ka socda waxa ugu weyn ee taa dhiirigelinaysa ayaa ah nabadgelyada deganaanshaha deegaanka iyo ka go'aanshaha maamulka in qurbo joogta dibadda ku dhaqan ay yimaadaan oo ay maal gashadaan xaalad dhiirigelinaysa ayaa jirta dawladdu taas way dhiirigelinaysaa waxayna gashay kadarka kobaca oo ay ku noqon karto tusaale waxaan arkay in Jigjiga ay ku taagan tahay wadiiqada horumarka gaar ahaan ballaarashada iyo dhismayaasha madaxtooyada iyo kuwa kale ka socdaba ra'iisul wasaare ku-xigeenku waxa uu ku nuuxnuuxsaday isbedelada iyo horumarka ka jira deegaanka ay dawladda federaalku ilgooni ay ku hayso una jira guddiga taageerada gaarka ah oo si joogto ula socda xaaladda deegaanka በአሁኑ ሰዓት የፌደራል መንግስት ይሄን ክልል የሚያየው በፈጣን ልማትና ለውጥ ውስጥ ያለ መሆኑን ነው የፌደራል ልዩ ድጋፍ ቦርድ አለ በየጊዜው እየተከታተለ ስራዎችን እየገመገመ ይመዝናል የጋራ መድረኮች ከሌሎች ክልሎችም ጋር እንደሆነ ከ3 ቀን በፊት አዲስ አበባም እንደው በኢህአዴግ ደረጃ መድረኮች ነበሩ እና በክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለው ስራ ሰላም አጠቃላይ በጣም ጥሩ ነው waqti xaadirkan dawladda federaalka waxa uu muuqda in deegaanku uu ku jiro horumar iyo isbedel xawli ku socda waxa jira guddiga taageerada gaarka ah ee federaalka oo mar walba la socda oo qiimeeya shaqooyinka waxa kale oo jira kulamo kale oo loo dhan yahay oo deegaanada kale lala yeesho oo 3 cisho ka hor la qabtay Addis Ababa waxa ka jiray kulamo heer EPRDF ah sida darteed guud ahaan dhaqdhaqaaqa ka jira in nabadgelyo aad buu fiican yahay mudane Dhamaqa Mokone mar uu ka hadlayay socdaalkii caana ka dhanay Mareykanka waxa uu sheegay inay mudan yihiin qurbo joogta Minneapolis mahadnaqa maadaama gaashaanka u daruureen kooxaha wax siyaasadeed ay dhiirigeliyeen horumarka deegaanka ዋናው የክልሉ ተወላጆች ስብሰባ ከክልሉ ፕሬዝዳንት ጋር ያካሄዱት እኔ ዶክመንቱን አይቻለሁ ተከታትየዋለሁ በጣም የሚገርምና የክልሉ ተወላጆች ምን ያህል ቁርጠኛ እንደሆኑ ሌሎች የፖለቲካ ዓላማ ይዘው ነገሮችን በተሳሳተ አቅጣጫ ሊመሩ የሚፈልጉትን ትክክለኛ መልእክት የሰጠና የዚህን አካባቢ ህዝብ ለላቀ ልማት ያነሳሳ ስለሆነ ሊመሰገኑ ይገባል የፌደራል መንግስትም በከዚህ አኳያ አክብሮቱን ይገልጽላቸዋል waan daawaday barnaamijkii laga duubay shirkii dhaxmaray qurbo joogta iyo madaxweynaha waa wax lala yaabo iyo sida ay Jaaliyadda uga go'an tahay wuxuuna kulankaasi fariin cadsiiyay kuwa wax siyaasadeed ee dhanka kale wax u leexiya waxayna mudan yihiin in loo mahad celiyo maadaama ay dhiirigelinayaan horumarka bulshada dawladda federaalkuna xushmad ayay u haysaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Dhamaqa Mokone ayaa hoosta ka xariiqeen deegaanka Soomaalidu noqon doono goobaha mudnaanta gaarka la siinayo qorshaha GTB2ga maadaama ay jiraan marxalado kala duwan oo dhiirigelinayo horumarka deegaanka iyo hawlo badan oo u baahan la sii dardargeliyo እውነት ለመናገር ይሄ ክልል ከሀገራችን ክልሎች ከኦሮሚያ ቀጥሎ ትልቁ ክልል ይሄ ክልል ነው እጅግ በጣም ትልቅ የመልማትና የመለወጥ እድል ያለው ክልል ነው እንደ ሌሎች አካባቢዎች ሁሉ ከሌሎች የሚለየው እስካሁን ድረስ የተጀማመሩ ስራዎች አሉ እንጂ ገና መልማት የሚገባውን ያህል ያለም አካባቢ ነው አሁን ክልሉን ለማልማት የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል ውሃው መንገዱ መስኖው መንደር ማሰባሰቡ ሌሎችም እነዚህን ሁሉ በዚህ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ይሄን ክልል ለማልማት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ የተፈጠረበት ነው የሚቀጥለው GTP ይሄ ክልል በአገራችን ውስጥ ትራንስፎርሜሽን ይካሄድባቸዋል ተብለው ከሚጠበቁት ቀዳሚው ይሄ ክልል ይሆናል በያምናለሁ ለዚህ ምቹና ለዚህ ይሄን የሚያስችሉ ሁኔታዎች በተጨባጭ ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ ለክልሉ ዋሪዎች ለሀገራችን ትራንስፎርሜሽን አንዱ ጠንካራ አቅምና ክልል ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን ተስፋ ተጨባጭ ለማድረግ ሁሉም በትኩረት የሚረባረብበት ይሆናልና እጅግ በጣም ብሩህ ተስፋ ያለው ክልል ከኦሮሚያ ቀጥሎ ትልቁ xaqiiqada marka laga hadlo ballaadhnida deegaanada dalka deegaanka ugu ballaaran ee ku soo xiga deegaanka Oromiya waa deegaankan waa deegaan fursad u haysta inuu horumaro oo uu isbedelo sida goobaha kaleba waxa uu kaga duwan yahay goobaha kale ayaa ah waxa jira waxyaabo la bilbilaabay balse heerkii looga baahnaa inuu ka horumaro umuusan horumarin hadda waxa abuurmay xaalado uu deegaankani ku horumari karo gaar ahaan biyaha wadooyinka masnooyinka dibadajinta iyo qaar kale qorshaha GTB-ga deegaankan waxa uu ka dhigay mid horumarka ku haboon waxaan aaminsanahay in deegaankan uu noqon doono xilliga GTB2ga in transformation-ka dalkeena goobaha ugu horeeya ee laga dhaqan geliyo uu noqon doono sababtuna waa maadaama ay ka jiraan
xaalado si dhab ah u muujinaya mudnaantaas deegaankani waa mid leh rajo weyn oo transformationka dalkeena u leh awood adag ka dhabaynta rajadaasna waa mid cid kasta ay ka dhabayn doonto waxaana shacabka deegaanka ku booriyay inay ku faraadeegaan nacooda nabadeed ee dac kasta oo deegaanka ka mid ah gaadhay loona guntado in horumarka laga wada faa'iideysto መጨረሻ ማስተላልፈው መልእክት ያ እንግዲህ በተረጋጋሚ እዚህ ክልል እየመጣው በስራ አጋጣሚ ስጎበኝ መታዘበው ነገር ከምንም በላይ ህዝቡ እጅግ በጣም እንግዳ ወዳድ ለመንግስት ቅርብና ጠንካራ ኢትዮጵያዊነትን ለመገንባት ቆርጦ የተነሳ ህዝብ ነው ስለሆነም ይሄ ሰላም በየደጃችን መተንፈስ ጀምሯል ይሄንን ዘላቂ እንዲሆን እንዳይል ብሌናችን መንከባከብ ይገባናል በአካባቢያችን የተጀመረው ልማት ዘላቂ እንዲሆን ሁሉም እንዲጠቀምበት ሁሉም አርብቶ አደሩም ሌሎችም የየድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ሁኔታዎች ምቹ ናቸው ይሄን የተመቸ ሁኔታ ለህይወት ለውጥ ለመጠቀም የበለጠ በጋራ ሆነን ተቀናይተን መረባረብና ምርጫችን ደግሞ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉም ነቅቶ saraawun indisara igabwal no ugu dambeyn fariintan gudbinaya ayaa deegaankan marar badan ayaan hawlo shaqo ku soo booqday waxaan arkaa ayaa arrin wax kasta ka qiimo badan oo ah shacab martida jecel u dhow dawladda ay ka go'an tahay yeeglelida Itoobiya adag sida darteed neecawda nabadu doc kasta oo uu leeyahay way gaadhay deegaankan haddaba tan si aan uga dhigna mid waarta waa inaan dhammaanteen ku indha kulanaa horumarka ka jira deegaankeena si looga dhigo mid waara waan cid kasta ay ka faa'iideystaa xoolo dhaqatada iyo cid kasta waa inay ka soo baxdaa waajibka saaran xaaladaha degan ee aboon ay ka jira deegaanka waa inaan dhammaanteen iska kaashanaa inaan sida ugu habboon uga faa'iideysano sidoo kale doorashadeenu si ay ugu dhammaato dimuqraadiyo iyo nabadgelyo waa inaan dhammaanteen ka shaqaynaa